Maxaa kugu daaliyay qof aad in badan u baahan tahay adiga? Waad daalaysaa habeen iyo maalin. Qof ayaad u baahan tahay inaad kasbato. Waxaad mar kasta u muuqataa mid ku fashilmayo waxyaabaha uu sameeyo oo dhan. Ma ogtahay inay jiraan ficilo qaab lahayn oo aad intiina badan baad samaysaan, rag iyo dumarba. Waxaad qaarkiin ku dhigantihiin sharcigii 2002, qaar kalena waxay haystaan sharciyo ay u sheegeen dad aan in badan fahansaneyn habmaamulka maskaxda aadamiga. Qof in la kasbado oo xiriir lala yeesho way fududahay waqtiyadan dambe. Wax walba waxay noqdeen updates. Anyway, kuma sheegayo maanta siyaabaha qof lagu kasbado. Ka waxaynu ka dhigi doonaa muuqaalka xiga. Laakiin aan in yar ka hadalno ficilka daalka badan kugu riday adiga. Habeen iyo maalin ayaad qofka daba joogtaa. Mar uun xitaa kuu fiirin maayaan buugga naxariista. Haddaan kuu sheego isgaro wiilow ama gabrey, wax badan inaad isbeddel ku samaysaa lagaa doonayaa. Waa tahay saaxiibayaal, muuqaalka xaqiisa waa inaad like garayso. Haddii aad ku cusub tahay inaad ku soo biirto kanaalka, waa iga xasuusin. Let's do it. Qodobka koowaad, kama aadan soo gelin waddadii saxda ahayd. Ma ogtahay inaad saaxiibka ama saaxiibada aad nambarka u dirto qofka ama qofta aad rabtay ay kugu tahay albaabka koowaad ee adiga ku gelin kara kaydka. Warkan kuu sii jilciyo, waxaad u baahan tahay gabar oo aad jacayl u qaaday, waxaadna rabtaa inaad xiriir la yeelato ama aad xiriir u sheegato oo aad danahaaga kala hadasho. Laakiin awooddii ayaa kugu yaraatay oo waad awoodi weysay inaad u tagto qofta ama qofka aad nambarkana ka soo qaadato. Den waxaad u dirtay saaxiibka oo aad tidhi ii keen nambarkeed, adigoo awoodi waayey mar uun xitaa inaad hor istaagto una sheegto waxaad dareemayso. Nasiib xumo, gabadhii waxayba ka heshay saaxiibka oo kartida iyo geesinimada uu ugu tegay, misna ku yidhi isii nambarkaaga ayaa qancisay. Ma ogtahay had iyo goor dumarka ama ragga inaysan jeclayn dadka daciifka ama cabsida badan. Qof ayaad u baahan tahay, waxaadna u adeegsatay qof kale. Waa qayb ka mid ah daciifnimadaada. Waxaan qofkiis oran karaa, qofkan hadda awoodi waayo inuu nambarka i weydiisto, siduu ii ilaalin karaa? Adiguna habeen iyo maalin waad wacaysaa, laakiin iyadu saaxiibka ayay la sheekaysanaysaa, oo xitaa waxaa laga yaabaa iyaduba inay ku bilowday hadalka oo dhan. Sheeko yar ayaan idinkaga sheekaynayaa. Wiil ayaan saaxiib ahayn. Wuxuu aad u jeclaaday gabar aan aniga asxaabo nahay. Wuxuu iga codsaday inaanu raadiyo nambarkeed, laakiin waxaan ku dhiirigeliyey inuu isaga soo qaato. Ugu dambeyn wuu soo qaatay, si fiicanna waa loo soo dhaweeyey. Ma ogtahay aragtida markasta nasiibka badan waa tan koowaad. Aragtidaada koowaad ayay dumarku qiimeeyaan, iyagoo ku sii daraya geesinimada, kartida iyo xariifnimada. Qodobka labaad, markaad la xiriirto calaacal iyo war bilaa micnaha ayaad ku hadashaa. Warka oo kooban, tusaale iga dhigayso, dadku tusaalaha ay wax ku fahmaan. Nambarkii waad heshay anyway, kadibna waxaad hadalka ka bilowday abaayo ama aboowe, anigu waan ku rabaa. Runtii qofku jecel ayaan ahay. In muddaa kugu fikirayay, in muddaa ku fiirsanayay, meel aan kaa soo raadinin ma laha. Wallaahi quruxay ama quruxow, naftaa kuu baahan. Habeen iyo maalin ma hurdo, niyadda igaga taagan tahay. Waxaas waxaa la isticmaali jiray 2000. Qof aan ku aqoon hadalka oo dhan wuxuu kugu soo koobi karaa mataqaanaa. Qof aan aqoon diyaar u mahay xiriir inaan la sameeyo. Ma ogtahay maalintaas ayaad ku dhacday fashilkii ugu xumaa abid. Waqti waxaa lagu jiraa shukaansiga xitaa abdid lagu sameeyey. Goormaa laga tegay qof in la dhaho waan ku rabaa iyo waan ku jeclahay? Aniga aad baan ula yaabaa qof marka uu meesha ka bilaabo hadalka. Qof aan ku aqoon xitaa laga yaabo weligiin inaydan kaftamin ama aydan kulmin, sidoo ku jeclaan karaa? Sidoos kuugu yeelayaa? Marka hore soomaha qofka inaad saaxiibtaan oo si saaxiiba ugu soo dhawaatay, kadibna aad u muujiso qofkan dadka inaad ka duwan tahay. Anigoo aan ku aqoon ayaad rabtaa marka inaan ku soo dhaweeyo bro. Marka hore qofka isbar, tus inaad dadka ka duwan tahay. Haddii kale weligaa meeshaas la joogaysaa, waa daalaysaa un. Xitaa qofka waxaa lagu sameeyaa wax uusan ilaawi karin habeenka oo dhan. 3, adigoo qofkii si fiican isku fahmin ayaad kulan u sii balansanee.
abbaayo ma ku arki karaa camal. haddii lagu arki lahaana ma isoo kala kicinaysid maalmahaas, waayo shiid ayaa tahaybo. adigoo hal dhalo barfuum fiican iibsan karin ayaad haddana qof sii ballansanaysaa, ugu yaraan xitaa labis kala kacsan oo ugu yaraan $30 kaaga baxaayo adigoon iibsan karin ayaa qof leedahay ila kulan. haddana haddii lagu dhaho xaggeen ku kulannaa, ma ka bixin kartid qarashka gaari raaca, xitaa markaasaad u baahan tahay qofka inuu ku soo dhaweeyo, waa daalaysaa un. aniga tala ahaan waxaan kuu siinaa kow shaqayso, lacago meel ha kuugu dhacaan, kadibna waxaad samaysaa waxaad u labisataa si cajiib ah, markaana barfuunka ugu carafta iyo waqtiga dheer iibso. marka qofta way kugu faanaysaa, la socoshadaada xitaa waxay ku dareemaysaa farxad iyo firfircooni. adigoo shiida horta qof ha isku balamin, haddii kale fashilkii ugu weynaa midkiisa ugu darnaa ayaad ku dhici doontaa. waqtiyadii hore caadi ayay ahaayeen in la isbalansado oo waqtiga maysan jirin meelo sida hadda oo kale lacag lagu galaayo ama cabitaano badan oo lagu iibsanayo ugu yaraan $1 maysan jirin waxaas. sidoo kale waqtigaas waxaa la isku istaagi jiray darjiinada, sidoo kale waqtigaas waxaa la iska fariisan jiray darjiinada caadiga xaafadaha. moobilo iphone ama shaashadna maba jirinba, hadduu jirayna wuu yaraa. markaa dadka waqtigaas jiri jiray ayagaaba iska shiid ahaa maahno. waqtiyada hadda la taagan yahay, gabadhu waxay rabtaa inay raacdo wiil wata iphone iyo saacadiisa, labis qurux badan dhexda u xiran ama yow ah. sidoo kale waxay rabtaa barfuunkiisa inuu isagu ka horeeyo carafta, keliya waxay ka rabtaa faca iskaga jabi, markaasaana saameyn yeelan kartaa adiga. afraad, habeen iyo maalin calaacal. taleefanka lagaa qaban waayey 2 jeer ama 3 jeer, markaasa waxaad qoraysaa fariin u baahan in la akhriyo ugu yaraan 10 daqiiqo. waxaad u diraysaa wax iyaduba ama isaguba dareensiinayo caajis midii ugu xumayd. aniga midaas waxaaba igala sii yaab badan, adigoo markii hore waddadii saxda ah soo marin ayaa haddana isa sii maseersiinaysaa. ewelba caajis ay kuugu qabeen, marka waxaa habboon in qofka hadduuba 2 jeer qaban waayo cajiibka dhahdo. waxaa wanaagsan inaad u sugto waqti ilaa iyagu kaa soo raadiyaan. haddiise ay ku soo raadin waayaan aad meesha uga harto, waa sax, qofta ama qofka waad jeceshahay, laakiin maaha inaad adiga gacantaada isku bahdisho. qofkaas haddii aad ka aamusto waxay dareemayaan inaad tahay qof dadka ka duwan, laakiin marna aad dhahdo haa waa iga daneysatay, marna aad dhahdo abbaayo aboowe iga raali noqo, waa xanaaqsanaa, walaahi xaalad kale ayaa ku jiray, adoo weli xitaa lagugu soo jawaabin ayaa haddana intaas sii qoraysaa. mar dambe ma ku dhahay micnaha adile isku xanaaqay, haddana adile israaligeliyey. qofkaas maba kaa warqabo, adna daal iyo energy, murug iyo cawaad wuu kaa dhammaaday. marka xariif noqo, ama gabar ahaw ama wiil ahaw, haddiiba aad weji kale ka aragto macsalaama dheh. ayse ahayn maahno, qofka waad rabtaa soomaha, ha isku mashquulan even haddaa rabto. qodobka 5aad, iska dhaadhicin beena. waxaad iska aaminaysaa in adiga un daacad lagu yahay, waxaad u haysataa in qofkaasi ku jecel yahay, adigoo u jeedo calaamado badan oo dhammaan tilmaan oo ah inay jirin wax rabitaana ama aqbalaad ah. waxaad u haysataa in adi un lagu jecel yahay, adigoo iska tirtiraya waxyaabaha kale. weli ma aragtay qof aad u haysato aduu inuu ku jecel yahay, misena qof kale la sheekaysanaa, weliba weji ka weji. mobile ma aha, hadda waa face to face. weliba adigoo intaa arkay ayaad u haysataa in waxaasoo dhan ay yihiin been. qalbigaaga ayaa been kuu sheegayo. saaxiib, wixii ay indhahaagu arkaan waa sax, laakiin qalbigaa ka dhigayo mid beena si uu kuu sabarsiiyo ayuu doonayaa. meesha saas ku aragto isaga tag, xor ayaa tahay. qodobka 6aad, iyaga ayaad isku koobtay. subax, duhur, casir, maqrib, cisho, leylkii xitaa iyaga un ayaad rabtaa inaad la sheekaysato, iyaguna waqtiga ay kaa boojayaan. waxaad u malaysaa adaynay ku rabto, laakiin rabaansho xaqiiqa ah waxaa lagu gartaa qofka sida adi u la wadid inuu isaguna kula wado xiriirka. qoraah ayaa dhahaysa xiriir sidiisuba waa inuu jiraa labada dhinac, hadduu jirinna waa waqti lumis, isaga tag. marka adiga in badan ayaa jeceshahay oo xariga xiriirka 95% adaa hayo, iyagana 5% ayay hayaan.
haddii hal hadal la isku khilaafo waa iska baxaan iyagoo maqnaanaya even weeks. haye macquul ma tahay qof wax jecel asbuuc inuu maqnaado? maahan sidaan qabo, laakiin runtii xiriirkaaga siduu u shidnaado waa inaad soo martaa ciwaanada koowaad. qodobkii 7 waxaad rabtaa inaad iyaga qanciso. marka horeyba adigaanba qanacsanayne sidee qof kale u qancin kartaa? sideese lagugu qancayaa? wax waliba waxa ugu muhiimsan waa inaad adiga qanacsan tahay, markaasa qofka banu aadamka qancin kartaa. xaqiiqdan ayay inta badan dadku fahansaneen. adiga inaad qanacsan tahay waxay ku siinaysaa kalsooni badan, waxay ku siinaysaa firfircooni badan. waxaad markaa yeelan kartaa qof ku habboon noloshaada iyo naftaada. adigu midaada qanci oo qurxi oo juhdi geli oo dadaal. ama qodobka 8 waxaad u muuqaal eg tahay qof degan oo aamusnaan badan. waxaa qaarkiin xitaa laga yaabaa inaysan ku wanaagsanin ku hadalka mobilka. marka sidee qofku xiiso gelin kartaa adigoo aamusnaan badan? dadkani had iyo jeer waxay jecel yihiin inay helaan qof waqti badan la qaadan kara kana qoslin kara in badan. muuqaalkaaga muhiim maaha haddii aad xariif ku tahay wada sheekaysiga. muuqaalkaaga wuxuu qiimo yeeshaa markaad hadal iyo shukaansi waqti dheer ah aad samayn karto. laakiin qof ayaad u baahan tahay, waxaadna ku fikiraysaa inaad hesho. habeen kastana qoraal ayaad u diraysaa. hawshaas kama weynaatid. waxaasna waxay keenaan caajis iyo lugoys. marka kac oo abdeed iska dhig. qodobka 9 waxaad tahay sidii qof iib ah oo kale. maanta oo dhan waxaad rabtaa inaad fariin iyo waqti kasta aad iyaga la hadasho adoo fariin la qoraayo. taasna waa way kale oo qofka aadan isku fahmayn. adigana habeen kasta waad ordaysaa, maalin kasta stress ayaad ku jirtaa. waxaad leedahay maxaa khaldan? sideese kuugu fahmaysaa? adigaaba qofka ma siinaysi jaanis ay kuugu fahanto, ma siinaysi jaanis ay kuugu fikirto. waxaa habboon markasta inaan lagu helin, laakiin waxaad adiga muujisay baahi badan. guud ahaanna dadku way ka siman yihiin, ma jecla baahi badan. waxaa lagaa rabaa inaad qiimahaaga saraysiiso oo marna lagu helo, marna lagu waayo, oo marna lagu xiiso. si aad midaa u suurtagelisana waa inaad waqti badan u quurtaa xiriirkaaga. degdeg ayaa kuugu furan. qof aad shalay u sheegtay waxaad dareemayso ayaad rabtaa inaad berina ay ku aqbasho oo aad guursato. dumarow ama ragow, degdega waxba ma xaliyo, xiriirna ma dhiso. xiriir wuxuu ku dhismaa kuna qurux badnaadaa waa deganaanta iyo waqtisa siinta, kala dambaynta. waxayna timaadaa waqti dheer in laysla joogo. 11 naftaada sida uga fikirto in ka badan ayaa iyaga uga fikiraysaa. qof aad og tahay inuu dhankaaga ka adag yahay oo ay kula muuqdaan inaysan waqti ku siinayn, oo ay u muuqdaan inay marna ku wanaagsan yihiin marna kaasii jeedaan, ayaad habeen iyo maalin kasii fikiraysaa. adiga la isjeclaysiinayo. marna lagama yaabo inay iyaga ku soo dhawaadaan ama ku jeclaadaan ama kuu soo jilcaan. wax kastoo aad samayso waad daalaysaa un. adiga intaan kuu sheegay soo tijaabi. qofna ha isaga lumin waqtigaaga, qofna ha ka fikirin waqti dheer, qofna ha isugu duldhigin oo bilaa camal ha noqon qof aan qiimo lahayn. muuji waxaad tahay, kartidaada ha sarayso. mar walbana ha u ogolaan inay qaataan fikirkaaga. waxaad noqonaysaa qof aan caadi ahayn. qodobka ugu dambeeya 12 si aad u kasbato qofkaas si fudud iyo maalmo fudud, kanaalkan ku soo biir oo sug muuqaalada xiga. waxaan ku soo dhigi doonaa maalin kasta muuqaalo xiiso badan, waxna ka bedeli doona xiriirkaaga, kor u qaadina doona xirfadaada shukaansi. subscribe garayso, sidoo kale like saar muuqaalka. wixii fikir ahna hoos noo dhig. I hope dhammaantiin inaad ka wada heli doontaan muuqaalka. ha ilaawin talooyinka. intaynu midkeena xiga ku kulmayno. salaam.